ilaa in ka badan 200 qof oo muddooyinka ugu dambeeyay la darnaa dhibaatooyin ka haystay dhinaca aragga ayaa cisbitaalka manhal ee magaalada burco loogu xaaqay indhahood 3 maalmood oo ugu dambeeyay ayaa qaliinkaasi lagu xaaqayay indhaha dadka ay ka hortimi dhibaatada arag la'aantu ayaa waxa uu ka socday cisbitaalka manhal oo ku yaala magaalada burco Dr. Ahmed Maxamed oo ku magacaabay Dr. Shine ayaa isagu qaliinkaasi waday isla markaana telefishinka qaranka Soomaaliland uga warbixiyay howlgalkaasi qaliinka indhaha lagu xaaqay waxa ka faa'iideystay dad ilaa 200 qof tiradoodu dhan tahay oo u badan caadka indhaha dadka ka qaada ee ma aragga qaada laakiin hadii la qalo araggu dib u soo noqon karo inkastoo ku jireen dad biyo laga xidhay oo biyana ay ku furmeen ugu dambeyntii maxaad doonaysaa bal fariinta aad doonaysid maanta maadaama inta badan aad adigu ka howlgashid laxaadkan indhaha oo kale sidaan ku soo sheegayna ay tahay meel xasaasiya oo daryeel iyo talooyin badan u baahan waa maxay fariinta aad maanta u dhaafayso dadweynaha inta iskuulada ku jiraan ayaa la baaraa wuxuu muraayado u baahan waa la siiyaa Somaliland haddaan ka soo qaadno ardayda iskuulada dhigata inay 150 qof yihiin 150 caruur yihiin wax laga yaabaa 9 caruur inay u baahan yihiin muraayadaha caruurtaas haddaan qaadan muraayadaha inta ay yar yihiin in la'aanta hadda haysa weligood waheynaysa qaliinkan lagu soo gabagabeeyay cisbitaalka manhal ee magaalada burco lagu xaaqayay indhaha ayaa waxa laga fuliyaa bil kasta oo cisbitaalkan manhal ee magaalada burco iyadoo qaliinkan indhaha maanta la soo gabagabeeyayna uu ka koobnaa xubka qaadis iyo waliba noocyo tiro badan oo qaliinkaasi uu ka kooban yahay waxaana uu wax badan ka bedeli doonaa aragtidii dadkaasi ka badan 200 ee maanta loogu soo gabagabeeyay qaliinkaasi cisbitaalka manhal ka socday indhaha uu ku xaaqayay Dr. Ahmed Maxamed Dr. Shine Abdi Sattar Sabri TV-ga qaranka Somaliland magaalada Burco